kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan magacayga waa khaliiji waa casharadeennii ku saabsanaa dodge for anfinga jarmalka loogu talagalay dadka bilowga ah waxaa ku guda jirnaa qaybta labaad ee luqadda ee aad daawasho wacan cashirkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay preposition with dative iyo accusative sida prepositionka aad u kala isticmaali lahayd dative iyo accusative si aan marka u kala ogaano wixii dative ah iyo wixii accusative ah waxaan soo qaaday meeshan diagram meeshan waxaa ku haysanaa dative inta meesha ku qoran waxa waaye prepositionada oo aad kaliya u isticmaali kartid dativeka inta wax ku qoran waxa waaye prepositionada aad u isticmaali kartid kaliya accusativeka marka waxaa jira prepositiono oo aad labadaba ku isticmaali karto oo ah intaan ku jirto marna dative oo isticmaali kartaa marna accusative oo isticmaali kartaa kaliya waxay ku xiran tahay sentenceska iyo qaabka sentence ku dhisaysid dativeka prepositions waxa ka mid ah tusaale ahaan up oo ah hadda wixii ka bilowdo up heute maanta wixii ka bilowdo nach meesha u socotid aus meesha ka imaaday ausa ka baxsan by dhinac ama dhan by mir by dir mit la wadaaga adoo with to meesha u socotid phone ka imaaday side xilliga gegen uba kasoo horjeeda intaan waxa waaye dativeka accusativekana asigana waxa waaye bis meesha u socotid meeshan waxaa dhan up heute bis morgen tusaale ahaan ilaa iyo beri ilaa meesha ku dambeyso durch oo ah dhexmarid wir fahren durch Frankfurt dhexmarina für sabab ohne la-aanteed oo bilaa sabab gegen kasoo horjeeda ku saabsan iyo qaybtan kaleetood oo ayada dativekii accusative ku dhexeysa oo ah in gudaha an korka auf ku saabsan neben dhinaca hinten gadaal über sidoo kale ku saabsan unten hoos for hortaada iyo isfishin oo ah inta u dhexeyso tusaale ahaan qaybtan waxay ku jirtaa inta u dhexeyso dativeka iyo accusativeka sidaa marka si fiican ugu sii faahno meeshan waxaa ku diyaariyey tabeelo oo ku saabsan qaabka prepositionada ay accusativekii dative kula qaataan an tusaale ahaan markaa su-aalahan iska weydiinaysid waxay kaa caawinayaan inaad ogaatid inuu shayga dative yahay inuu accusative yahay markaa soo baranayna dativeka iyo accusativeka waxaa soo baran in su-aalaha dative iska weydiin karta ay yihiin wo und wann wo halkee iyo wann xilliga accusativekana iska weydiin kartid wohin waxa meesha u socdaan tusaale ahaan wo bist du hadda dadka lagu weydiiyo kale waxaa dhihi kartaa ich bin an der Tafel waxaa jooga sabuurada oo waa dative antaas markaa waxay ku cadaynaysaa meeshaas markaa aad joogtid wohin intay u socotaa ama waxaan intay u socdaan waa accusative ich gehe an der Tafel waxaan aadayaa sabuurada iyo wann xilligee am Samstag maalinta sabtida ah auf oo dusha ah wo halkee iyo wohin wo waa dative halkee auf dem Tisch miiska dushiisa wohin auf den Tisch markaan dative waaye markay n qaadanayso in oo ah gudaha haddii lagu weydiiyo wo halkee dativeka ah waxay noqonaysaa wo bist du haddii lagu weydiiyo ich bin in der Pension waxaa la dhahaa college-ka ama meelaha dadka lagu xareeyo aad jooga wohin intay u socotaa accusative ah ich gehe in die Pension wann gorme im winter markii xilliga qabobaha la gaaro aadaya hinta oo ah gadaal wo iyo wohin wo oo ah halkee waxay noqonaysaa markay dative tahay hinta dem hotelka dhabarkiisa dambo wohin oo halkee intay u socotaa ah hinta das hotelkaas gadaashiisa dambo for oo ah hortaada wo halkee for dem Krankenhaus isbitaalka hortiisa wohin dhinaca u socotaa for das Krankenhaus isbitaalka hortiisa wann xilligeena for eine Woche isbuuc ka hor über oo ah ku saabsan wo halkee dativeka ah über dem Tisch miiska dushiisa wohin halkee ayadan ah über den Tisch miiska dushiisa unten hoos wo oo halkee ah unter dem sofa hoostiisa iyo sidoo kaleetood wohin meesha u soctid oo ayadan ah unter das sofaha ama kursiga fadhiga hoostiisa neben oo ayadan ah u dhow wo halkee ich bin neben dem Haus guriga agtiisa jooga wohin intay u socotaa
oo accusative ah neben das house waxaan joogaa guriga hoostiisa. haddaan marka isku soo duubo prepositionada luqadda Jarmalka saaid ayay muhiim ugu yihiin, oo haddii meel an ah oo auf ka dhigtid waxaa laga yaabaa in jumlada dhan ay isbedesho micnaheeda, oo wax aad meel u rabtid inaad meel kale ka dhacaan laga yaaba marka adigoo bis prepositionka bedel. sidaa darteed waa muhiim inaad u isticmaashid prepositionada meelaha loogu talagalay ee saxda ah. isku day inaad prepositiono badan raadisid oo aad ku isticmaashid sida saxda ah. haddii aad wax su-aal qabtid ama wax qalad ku aragtid mar walba ila soo xiriiri kartaa. intaa kulankan ka xis badan kulmi doono anigoo Khaliiji ah. fi amaanillah.